uu gacanta ku soo dhigay 720 qof oo dhammaantood ahaa muwaadiniin Soomaaliyeed 720 kaas qof ayaa isugu jiray 22 qof oo dumar waliba dhalinyaro u badan 3 qof oo rag ah iyo 2 qof oo howlwadeena ah isla markaana doonayay in dadkaas ay dhoofiyaan dalka dibadiisa xubnaha bini'aadamka jirkooda ay ka ganacsadaan ku dhawaad 20 qof oo u badan dumar ay ka dhoofinayeen dekada magaalada Muqdisho hase yeeshee ciidamada dambe baariska Soomaaliya ayaa soo qabtay waxaana lagu soo bandhigay saxaafadda haddaba daawadayaal guud ahaan magaalada Muqdisho waxa ku soo badanayo afduubka loo geysanayo dhalinyarada iyo sidoo kale dumarka kuwaas oo hilbahooda lagu iibinayo wadamo shisheeyo iyagoona laga dhoofinayo dekada iyo sidoo kale garoonka waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad sir oo ku aadan sida dadkan loo dhoofiyo iyo halka la geeyo iyo qaabka aad isaga badbaadin karto haddii qatar noocan oo kale ah la kulanto hase yeeshee inta aanu gudagelin fadlan marka hore muuqaalka la garay si uu faafo una gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo janaalka subscribe dhahanaya ganbaleelkana u furanaya booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay ku dhawaad 20 qof oo la sheegay in laga dhoofinayay dekada iyo sidoo kale airportka magaalada Muqdisho kuwaas oo xubnahooda lagu soo iibinayay wadamo ay kamid tahay bariga Afrika sida Nigeria iyo wadamo la mid ah haddaba dadkan oo u badnaa dhalinyaro ayaa waxay ahaayeen qaar lamaan dooriyay iyo sidoo kale kuwa kale oo loo ballan qaaday in lacaga fara badan la siin doono haddaba ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa dadkani soo qabtay iyagoona xogtooda iyo macluumaadkooda soo bandhigay bal haddaba aynu isla daawano afayeenka booliska oo sharaxaya dadkan iyo qaabkii loo soo qabtay Bismillahir Rahmanir Rahim 13 June 2021 markale waxaan joognaa hogaanka baarista dambiyada CID maalinkii taariikhdu ahayd 8 bishii June 2021 ayaa hogaanka baarista dambiyada CID ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uu gacanta ku soo dhigay 720 qof oo dhammaantood ahaa muwaadiniin Soomaaliyeed 720 kaas qof ayaa isugu jiray 22 qof oo dumar waliba dhalinyaro u badan 3 qof oo rag ah iyo 2 qof oo howlwadeena ah isla markaana doonayay in dadkaas ay dhoofiyaan dalka dibadiisa si sharci darro ah oo aan ilaa hadda la ogeyn sababta ay ula jeedeen dadkaas ay dhoofiyaan dhammaan dadkaas ahaa muwaadiniinta dhalinta Soomaaliyeed ah waxaa loo waday dalka dibadiisa iyadoosan iyaga ruuxooda wax fakara ka haysanin meesha ay u socdaan aysan jirin cid la og marka laga reebo dadkii waday qaarkoodna xitaa waalidiintoodu aysan ogeyn isla markaana ay u ahaayeen أولاد وحبرتا أو ديوان قشن مواطنين عادي وعجل دراسته لقد ياري أرمها نوعان أو هيدها إسكاش قلالة عيدي كبوليس كصوماليات لنك على دقالن كمهاجرين تا يتهريبين تا مواطنين الصوماليات وحفكر أن كي سنين دعدوين كنوعان أدون كودن وحكت جرا هيدو عالمي ويوه الرئيس هيدا United Nations Office of Drug and Crime UNODC ay kamid tahay tababarada gacanta marka saasiisa ciidanka booliska Soomaaliyeed marka laga eego muhaajiriinta iyo la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waxba galabsan Sub-Sahara Africa oo qaybta aan adduunka Soomaaliya ay kamid tahay 26 dal 2018 waxa laga diiwaan geliyay 26 kaas dal ee Sub-Sahara Africa cadad kiisas oo aad u fara badan kiisaskaas ayaa daraasadaha aad ka dheehan kartaan bogagga website-yada caalamka ee lagu diiwaan geliyo ay dhigayaan 14% ka mid ah dadka tahriibaha bariga Afrika ka tahriibay yihiin rag 720 ay yihiin dumar saasoo kale 720 ay yihiin wiilal dhalinyaro ah 32 ay yihiin gabdho da'yar ah oo caalamka intiisa kale loo wada tahriibay dhamaantood waxaan u baahanahay arinta ummadda Soomaaliyeed ay fariintan qaataan ay ku baraarugsanaadaan oo diyaar u ahaadaan lana socdaan siiba khaasatan waalidiinta Soomaaliyeed inay ka warhayaan caruurtooda halka loo wado sidii u socdaan la saaxiibaan la dhaqmaan ogaadaanna dhaqdhaqaaqay habdhaqanka caruurtooda ay ku socdaan maxaa yeelay dhammaan kiisaska human trafficking la xiriira ee hogaanka baaris dambiyada CID du gacanta ku dhigay waxa daba socda waalidiin aan wax war ah iyo wacaal ah caruurtooda u haynin meesha ay u socdaan iyo meesha ay ka yimaadeen iyo waxay dabacsanayeen
halkaa markaan uga baxo dhanka kale xalay 12 bishii June 2021 shalay xalay fiidkii abaara 1:20 ayaa lagu arkay meydka qof dumar ah xaafadda Galmudug ee ka tirsan degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir marxuumadaas oo lagu magacaabi jiray Caasha Maxamed Cabdicasiis ina hooyo Raaso Siraad Cusmaan 20 jir ahayd ku dhalatay Qalaafe isla markaana deganeed ee degmada Garas Baalley taasoo la dilay isla markaana meydkeeda laga helay xaafadaas ayaa lagu soo wargeliyay ciidanka booliska Soomaaliyeed arintaas dhacdadaas dilka Caasho waa arin aad u fool xun qoyskii eheladii iyo qaraabadii ay ka dhimatay Caashana waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay idan naxariistii janno ha siiyo qoyskeedii iyo qaraabadii dadka ay ka baxdana samir iimaan ha siiyo hogaanka baarista dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa socda baaris arinta lagu kurgalayo walow eedeysanihii ilaa hadda aan gacanta lagu haynin laakiin ay socdaan baaris iyo dabagallo la xiriira arintaas sida horeba dhowr jeer u dhacday ciidanka booliska Soomaaliyeed falalka noocaas oo kaleeta ah dabagallada iyo la dagaalanka ka hortagga iyo ka dabatagga falalka noocaas markay dhacaan dhowr jeer kala duwan waxaan u soo qabanay eedeysanayaashii falka ku lug lahaa dhowr jeer hore waxaad ogtihiin in kiisas xamar ka dhacay oo eedeysanayaashii ay baxsadeen gobolada laga soo qabtay kiiskii u dambeeyay ee gabadha degmada Wardhiigley ninkeedu uu ku dilay saas oo kale gacanta lagu soo dhigay waa la wadagnay bulshada Soomaaliyeed saan oo kale marxuumad Caasho waxaan rajaynaynaa eedeysanaha falka ku eedeysan oo kiiskaas geystay in ilaahay idinkii gacanta lagu soo dhigi doono isna cadaalad la waafajin doono waa maasantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh haddaba daawadayaal guud ahaan Soomaaliya waxaa ku soo badanaya shabakadaha noocan oo kala ah kuwaas oo ka ganacsada jirka bini'aadamka shalay ayay ahayd markii naag u dhalatay dalka Itoobiya qaasatan qoomiyadda Oromada lagu qabtay iyadoo carruur Soomaaliyeed oo ay ka soo afduubatay waddanka Yemen la marayso Somaliland haddaba sidoo kale kiisaskii ugu badnaa ee dad la waayay ayaa magaalada Muqdisho laga diiwaan geliyay maalmihii ugu dambeeyay xogaha iyo macluumaadka sirta oo helinana waxay sheegayaan in dadka la geeyo goobo qaas ah kadibna kaliyaha lagala baxo waxay ahayd shalay markii gabar Soomaaliyeed oo meydkeeda la jarjaray laga helay duleedka magaalada Muqdisho ee xaafadda Kahda haddaba dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan Soomaaliyaba waa in ay taxadaraan waa in carruurta aan magaalada loo dirin iyagoo aan la socon qof weyn haddaba daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad warbixintan daawatay aadna ka digtoonaa doonto khatartan inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sidaa iyo nabadgelyo mahadsanidin uu gacanta ku soo dhigay 720 qof oo dhammaantood ahaa muwaadiniin Soomaaliyeed 720 kaas qof ayaa isugu jiray 22 qof oo dumar waliba dhalinyaro u badan 3 qof oo rag ah iyo 2 qof oo howlwadeena ah isla markaana doonayay in dadkaas ay dhoofiyaan dalka dibadiisa